munaasabada xil wareejinta oo ka dhacday xarunta wasaaradda dowladda Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee furdooyinka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland taliyaha ilaalada canshuuraha bariga iyo mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda maaliyadda taasoo xilka uu la wareegayay agaasimaha cusub ee waaxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay agaasimihii hore ee waaxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Bashiir Cabdullaahi Khaliif Bigex isagoona ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu xilka hayay halkan waxa ka dhacaysa in wareejin madax maraysa aniga Cabdiqaadir anoo agaasimihii hore canshuuraha bariga Bashiir Cabdullaahi Khaliif canshuuraha bariga waxaan ka soo bilaabay Boono Jare hoos waan ka soo bilaabay kor kaga imaan 2000 yaan Boono Jare ka noqday oo aan kaga soo biiray bangiga ganacsiga kaydka Soomaaliyeed baan ahaan jiray marka aan bangiyada laga soo qaatay canshuuraha bariga ku biiray ilaa iyo Boono Jare ilaa iyo hadda xilka doon ma ka soo qabtay maamule madax qaybeed agaasimo waaxeed maanta waxay marayaan canshuuraha bariga wax ka soo mareen maqaam wanaagsan oo laguna hayn karo meeshooda lagana siyaabo qaadi karo ayay marayaan maanta canshuuraha bariga halkaas adoo ragii soo gaarsiiyay baan ka mid ahaa agaasimaha cusub ee xilka la wareegay Cabdiqaadir Maxamed Ismaaciil Janyagaab ayaa dhankiisa mahadcelin u soo jeediyay agaasimihii hore waxaana uu ballan qaaday inuu halkaasi ka sii wadi doono waxaan aad ugu faraxsanahay meesha wax marayeen xafiiska canshuuraha bariga ama agaasimaha waaxda canshuuraha bariga iyo shaqaale la soo shaqeynay meesha wax soo gaarsiiyeen aad baan ugu faraxsanahay waxaan jecelahay inaan halka ka sii wadno waa mahadsan yahay agaasimaha haduu yiri yaan leeytay waa mahadsan yahay inkastoo ay hadda u badan tahay dadku in kuwa hore la tabo laakiin waxaan jecelahay insha Allah agaasim inaan lagu tago inaan halka ka sii wadno waxaan hayaa xil wareejinta gaadiidii shaqaale gabagabadii munaasabada waxaa soo xiray agaasimaha guud ee furdooyinka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Cismaan Buux Cali isagoona agaasimaha guud kula dardaarmay inuu halkaasi ka sii wado xilka loo idmaday Bashiir wuxuu hayay shaqo adag wuxuu shaqeynayay muddo dheer meel buu soo gaarsiiyay meesha uu soo gaarsiiyay maanta waxa weeyaan wuxuu wareejinayaa ama wareejiyay wax leh shaqaale wax leh waxa way gaadiid waxa weeyaan systemkeedii shaqo intoodii badan ay u dhameystiran tahay waxdaas waxa weey ku firiqsan ama ka wada shaqeysa dhammaan gobolada Puntland oo dhan halkaas ay la markaa Cabdiqaadir inuu la wareego isla markaana waxa weey uu dhameystiro waxa ka dhiman arrintan ayaa qayb ka ah ballanqaadkii madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee ahaa in agaasimayaasha waaxa ee wasaaradaha Puntland ay ku imaan doonaan imtixaan halka hore ay ugu imaan jireen magacaabis Ibrahim Maxamuud Yuusuf Television ka dowladda Puntland Boosaaso